waxaan halkan uga mahad celinayaa dhalinyarta iyo odayaasha iyo haweenka degmada og sida fiican ay noo soo dhaweeyeen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ganacsade Axmed oo runtii isaguna nagu soo dhaweeyay degmada waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka degmada xisbiga wadani gaar ahaan garabka dhalinyarta uu hogaamiyo Cabdiraxmaan sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa garsoorka iyo ciyaartooyga ka soo qayb galay tartankan muhiimadeedu waxay tahay in la dhiiri geliyo dhalinyarta iyo ciyaaraha oo way iga duwan tahay aniga degmooyinka kale ama gobolada kale waa degmadii uu ka soo baxay saaxiibkay xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac Saalax oo runtii xalay u dambeysay aan wada hadlaynay isagana uu soo salaamayay waxaan jecelahay cabashooyinkiinu waxay ka mid yihiin in garooma aad heshaan xaq baad u leediin insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo hiilkii aad u samayseen in kursiga ugu sareeyo uu fuulo murashaxeenii xisbiga wadani maantana madaxweynaha dooran ee 13 bisha hadii Ilaahay yiraahdo loo dhaarin doono xilka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro saad ugu hiiliseen codkiina u siiseen ayaan anaguna idinku nimi oo idinku mahad celinaa insha Allah waxaan jeclahay markii isku keen horeysay isku keen dambeysay noqon mayso waan idin hambalyeynaya ciyaartooygan hambalyeynaya maamulka degmadan hambalyeynaya garsoorkii baan hambalyeynaya sidii qurux badneed ciyaartu ay dhacday ayaan hambalyeynaya waxaan hambalyaa leeyahay kooxda ku guuleysatay tartanka ayaan iyadana leeyahay hambalyo waxaan aad ugu hambalyeynayaa labadii kooxood ee halkan galabta ciyaarta quruxda badan ku soo bandhigay guushuna ku raacday kooxda Star hambalyaan leeyahay labadiinaba laakiin ta guushu raacday hambalyo dheeraada waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Tadhase oo soo gabagabeeyay koobkii Ciro koob kuna soo gabagabeeyay degmada Og taas waxay cadeynaysaa xisbiga wadani oo aan wali taladii la wareegin inay durba dhaqaajiyeen hawlihii dhalinyarada iyo ciyaaraha Tadhasana waan uga mahadnaqayaa sida hore loo sheegana waxaan madaxweynaha ka codsanayaa in Tadhase loo magacaabo xogayaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waayo already wuu ku dhex jiraa qofkuna waxa wanaagsan wuxuu ku dhex jiraa aqoonteeda leeyahay in loo dhiibo maanta waxaanu soo gabagabaynay koobkii aad iyo aad baan degmada ogna ugu mahadnaqayaa iyo ganacsadaha weyn Axmed Ismaaciil Gaani oo isaguna si wacan loo soo dhaweeyay ilaahay idin sharfaan la reer og labada kooxood ee koobka kala qaadayna aad baan ugu hambalyeynayaa kooxda Star ee koobka qaaday waa aad baan ugu sii hambalyeynayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ee koobka guusha u qabtay dhalinyaradu madaxweyne oo kii ku codaysay si fiican baad adna ugu abaal guday waxaan jeclahay inaad wax qabad badan oo ay tabanayaan loo qabto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada qiimaha iyo qaayaha leh reer Og sida qiimaha alaayada ay noogu soo dhaweeyeen degmada noogu casumeen ilaa maanta ay u soo bandhigeen ciyaarta qiimaha iyo qaayaha alaayad waxaan sidana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ganacsade Axmed oo isaguna si qiimo leh degmada noogu soo dhaweeyay tacab badanna degmada geliyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leeyahay qaadsaay mariyo waxaan kelmadeyda aan ku soo koobayaa kooxda guuleystana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Star baaqa insha Allah dhalinyaradu soo jeediyeen ee dhammaan dhalinyarada degmooyinka iyo gobolada ay kala siman yihiin ee ay markhaati uga kaceen xogayaha Tadhase inuu yahay shakhsi ku sifoobay ninka qura maanta isku wadi kara dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland baaqiinana insha Allah waanu ajiibanaa madaxdii xisbiga iyo madaxweynihiina waanu gaarsiinanaa waxaanu markhaati aan ka nahay oo sanadkii u dambeeyay imika aanu rafiiq ku ahayn in dhammaan degmooyinka dalka oo dhan uu koobka ku qabtay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu ku faraxsanahay hawsha waxa ka soo shaqeeyay oo aad iyo aad judi badan u geliyay gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga degmada Buraale maantana waxayna la jooga wasiir Tadhase aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qolada guushu raacdeena ku hambalyeeynaa waxaana finalka iskugu yimi labada kooxood ee Star iyo Gooja Cadde runtii galabta iyaguna ciyaar wanaagsan ayay soo bandhigeen waxaana guushu halkaas ku raacday kooxda Star kooxda waan u hambalyeynayaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa xogayaha iyo wafdida ballaaran oo hogaaminayo
runtii safarka dheer inoo soo galay si ay uga qaybgeli lahaayeen koobkan oo runtii iyaguna soo agaasimay oo koobka inoo dhigay koobkaasi si nabadgelyo ah inuu soo dhamaaday insha Allah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la doortay Cabdiraxmaan Cirro waxaan ka codsanayaa inuu wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha u magacaabo xogayaha dhalinyarada ee ciyaaraha Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase oo runtii nin khibrad badan u leh ciyaaraha intii oo lulu socdayna kasbaday dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxaan ka codsanaynaa Cabdiraxmaan inaad ninkan ugu magacaawdo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa kooxda Star ee guusha raacday waxaa isna bogaadin iyo hambalyo leh garsoora Faarax oo ciyaartaas si wacan u dhexdhexaadinayay waxaan isna bogaadin iyo hambalyo u diraya ganacsade Xaaji Axmed oo lagu soo dhaweeyay degmada Og